dalalka qaaradda Yurub waxaa ku badan dhibaatooyinka ka dhex dhasha qoysaska isqaba kaasoo soo dedejiya furiin ama burbur ku yimaada qoyska iyadoo aan laga fiirsan inta badan kala tagaasi qoys waxaa aasaas u ah xulasho iyo heshiis ka yimaada lamaano isdoortay kuwaasoo muddo fara badan isla soo jilaya jacayl hase yeeshee markay isguursadaan kadib oo ay noqdaan aabba iyo hooyo si fudud ku kala tagaan burburka qoyska waxaa ka dhasha dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaatee carruurta oo ay soo wajahdo kuriisho xumo niyad jab waxbarashada iyo waxyaabo kale inta badan waxaa loo aaneeyaa sababaha burburka qoyska dhowr arrimood oo isbiirsaday kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqaalaha isku dulqaadasho la'aan mas'uuliyad darro ka timaada labada waalid midkood iyo arrimo kale oo fara badan haddaba tv-ga SDN ayay u suura gashay in aan hoygooda ku booqanno axmed nuur ibraahim iyo nimco cali nuur waa lamaano Soomaaliyeed waxayna u oleeyaan arrimaha qoyska jacaylka isla markaana waxay dadku ka tala siiyaan sidii looga hortagi lahaa caqabadaha keena burburka qoyska waxay bixiyaan kuushash ama siminaaro ay dadku ugu wacyi-geliyaan in ay ka dhisaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ayagoo siiya talo waxayna tusaale fiican u yihiin Soomaalida ku nool dalka Norway gaar ahaan magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ugu horeyn waxaan weydiiyay sababaha keena burburka qoyska iyo sida ugu fudud ee loo xallin karo haddii uu khilaaf yimaado ani ahaan waxaan isleeyahay arrimaha ugu waaweyn waxay ka yimaadaan matalan dhaqaalaha oo kale oo la isku qabsado oo isfahan daro ka timaado xagga dhaqaalaha tan labaad waxaan dhihi lahaa ixtiraam la'aan labadii qof oo micnaha ixtiraam isku haynin waxaan isleeyahay qoyska burburka qoyska waxaa keena midda koowaad in asxaab xunxun oo la yeeshto gabadha ama wiilka oo badankaa waxaa ku yimaado gabdhaha oo asxaab xun oo yeeshaan oo banaanka baxaan oo familka waxaa ka dhacayo oo dhan ee sheegaan oo dhahaan waxaas ay igu dhacaya saaxiibe ila tali gabadha kalena ugula taliso wax xun ee tiraado ninkaas iska fur qof kalena waa helaysaa oo maad aragtay ninkaas maxaa ugu dhigaysaa gabar qurux badanaad tahay wax fiican waad heli kartaa ee dhahaysaa markaas qoyskaas way burburayaan khilaafka qaabka lagu xalliyo horta waxaa la yiraahdaa sida badan dawada waxaa ka fiican ka hortaga marka kowdiiba dadkan intays aroosin waxaa fiicnayd in ay wax ka ogaan karaan yacni sida khilaafaadka loo xalliyo okay taasi maba dhicin ba iska dheh hadday dhacdo markii guurkii bay ku cusub yihiin khilaaf bay miday in ay koorsooyin oo kale dadkii qaataan qaabka khilaafaadka loo xalliyo waayo dadkan hadda aan la diganahay Norwejigu lacag badan bay ku bixiyaan arrimahaas koorsooyin badan bay qaataan annakana marmarka qaar waxaa dhacdaa nasiib daro annakiyo koorsadii diyaar noloo leeyahay oo miiskii ka maqan siibaan waxaan oran lahaa nimanka baan anigu khaladka intuu badan saari lahaa waayo iyagaa mas-uulkii ah iyagaa laga rabaa inay dhinac walba arrinta ka rogrogaan oo ay dulqaadka badiyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu sii geeriyoonayay dardaaranadiisa waxaa ka mid ahaa war dhalooyinka ilaaliya buu yidhi marka dumarkuu ka waday dhalooyinka dhalana waa taqaanaa sida loo ilaaliyo haddii kale way jabaysaa marka in raggu ay mas-uul arrintaas ka saaraan marka uu burbur ku yimaado qoyska ayay dhibaatada ugu ballaaran la soo gudboonaataa carruurta iyo habkii loo wada korsan lahaa hooyooyinka la furo waxay badankood ragga ku eedeeyaan inay ku dayacaan carruurta isla markaana ay xaqii ay ku lahaayeen ubadkooda ay ka soo bixi waayaan horta nasiib darro way dhacdaa mararka qaar in uu aabihii markuu ay gabadhii kala tagaan oo inay carruurtii inuu furay oo kale inuu ula dhaqmo uu dayaco oo ka warqabin way dhacdaa nasiib daro taasna waxaa keeni kara inuu aabihii kala tegii uu saameyn ku yeeshay iyo culays ku keenay laakiin mar walba
aabbihii waxa weeyaan inuu ogaado inuu carruurtan isagaa dhalay kama hadhayaan weligii magaciisuun bay wadanayaan hadduu dhinto xataa marka taas isagoo ka fikiraya inuu carruurtiisa u roonaado uu xiriiriyo uu ka warhayo waxbarashadooda ka warhayo noloshooda ka warhayo wax walbuu awoodo u buuxin karo u buuxiyo caawimaad caawiyo hooyaduna iyadana kaalin libaax inay ka qaadato sidoo kale waa loo baahan yahay oy ay wax ka sheegin matalan aabahood isxaq dhowrid la'aantu waa furaha burburka qoyska qoyskuna waxa uu ku nagaadaa waa farxad samir iimaan isxaq dhowr kala dambayn isxurmayn iyo is-aaminaad haddii intaa la waayo lamaanihii waxay lumiyaan sharaftii uu reerku lahaa isxaq dhowrka waa arrin muhiim oo labada qoys ee ninka iyo gabadha inay isxaq dhowraan iyaduna ay xaq dhowrto jacayl bay keenaysaa oo labada qof inay isla wada noolaadaan farxad wacyi-gelinta bulshada ayay sheegeen inay door weyn ka ciyaari karto farxad ku wada noolaanshaha qoyska taasoo yareyn karta burbur ku yimaada qoyska wacyi-gelinta bulshada door aada u ballaaran bay ka ciyaaraysaa waxaanina ma ahin wax maalin ama laba yacni inta la yidhaaho meesha looga kacayo waa noloshuna ma dhammaanayso ilaa ay laga dhinto dee marka waa in wacyi-gelintana lagu celceliyaa siday bulshadii u fiicnaato oo wixii ka waantoodo laga run sheego qofku markuu reer dhisanayo inuu ka run sheego waxa uu yahay waxna dadka sii weydiiyo oo arrintaas wax ka og ama reeraha leh uu sii weydiiyo oo kasii qaato waaye aragnimo bila maxamed cabdi TV-ga SDN Bergen Norway